taajir afar luqood ma laha moogta dadka oo kale waxa weeyaan la mid yahay ninkii wuxuu yidhi 1 milyan aan bixina oo $10,000 lacag ku dhow ah waxa igu soo dhaweeyay ani wadankan Soomaalidu qabiil ay isu raacaan anigu wadankan aan joogo kawaajidi ahaan wallahi wa billahi wa tallahi dadka i garab istaagay dadkan ka dhashay ma ah majaalis qoran dhisideeda garab istaag intaas dhan dad aanan garanaynin hadda bartay oo ilaahay dartii soo baranay awal i garanayay baa garab igu siinoy ilaa yawmina hada runtii baladkan wadankan aan joogno Kenya ajaa'ibtiisa ma dhamaato habeen hore waxaan ka qayb galay Harambay oo maqli jiray runtii habeen hore ay horeysay مدارستا أو منديرة أي وحلو أرورنا تبرعات إن وقف لو سميو وفكر هذا في عن إن هالمر وحلا أروريو وقف لسميو لقالها كالصباحو مدارستا يددك دنتير وحبر الشضوضة وحويا لقا قيب قاطو قفكين أوسندري من هالمر وحوي لقا قاضو كدي مركب بل وليبا أما إيجارات كصباحيو إن لقو تابقليو وحبر الشضا ددك رنتي waxay u badan yihiin dad aan waxba iska bixin karin waxbarashadana haan weyn u hayo marka Harambeydan ka qayb galay saan u fadhin wax yar kadib madaxweynihii wadanka soo galay Ruto waxa la jiro wasaaradii iyo madaxdii Soomaaliyeed madaxweynihii Gaarisa madaxweynihii Wajeer iyo wasaro madax kale كل حقوق إمادين خير كاسي إنك كقيم قاتان إن تبدو الصدقات فنعما هي أيال رقم هي أو إن صدقات الله موجيه وهبل أنت سو بحيي هبل أنت سو بحيي هبل أنت سو بحيي لا اسكت لي رجليو وحياباس أكل السوق أو حلقوك القطع ما عرفتي وقاريجا أنت سو جوا يا كدراي مكو نادي ده نادينا يعني inta soo joogay ku dara ana kun ku daray oo wuxuu kasbanaa inuu qaadanayo ay tahay kaliya laakiin wax ilaahay dartii loola baxayo oo hadana lagu tartamayo hebel inta soo bixiyay hebel inta soo bixiyay waxa kale oo cajiib ah oo dawladaha kale oo runtii meel badan aan Soomaaliya laga helaynin oo waliba hadana maclasaf shadiid dawladaha aan sheegayo muslimiin ay yihiin in arintaasi ay ku sameeyaan waa kaafi kala dheeri madaxweyne wadanka oo muslim ahayn ayaa soo istaagay asagana oo tabarucaad wax ku darsaday kadalika qolo kale hadana ay kana muslimiin aan ahayn ayaa hadana wuxuu waxa weeyaan meesha lagu magacaabay uu kamid yahay ajaa'ibta badan Raila Odinga hadana asagana inuu ku daray 5 milyan ajaa'iba meesha ka dhacday marka عجائب كينيا ما ضمانيسو aad baan u jeclay runtii ficilkaasi wanaagsan Soomaalidu waxa ugu baaqa marka inay ku daydaan madaxda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqa marka masaajidada la dhisaayo inay ka qayb qaataan bal ayaka qudooda ay noqdaan kuwa u aruurinayo runtii shacabka Kenya muslimiinta ku dayashay mudan yihiin xaqiiqa wallahi waxay ugu mudan yihiin runtii Soomaalida kale way ka khayr badan yihiin qabyaalad ma yaqaanaan ilaahay dartii way dadka u garab istaagaan yuu yahay lagu dhihi maayo sheekh ma yahay ahlu quraan ma yahay wadaad ma yahay hadalkiisa wuxuu yiraahdo baa la yeelaa waxa xusid mudan runtii ninba jimcihii la soo dhaafayay bishaan hadda aan ku jirno inta iigu yimid masaajid dhulna la siiyay ayaan rabnay inaan dhismi wax ku bilowno sheek ahaan ba uu sheegna marka waxaan dhahay meeshan ciriiday nagu noqotay xaggan u guuri rabnaa guuri doona wallahi sheek iska ahayd hatta qof markaan arkay ama aad aragtid inuu xoolahiista aadan u maleeynin waa taajirka afar luqood ma la moogta dadka oo kale waxa weeyaan la mid yahay ninkii wuxuu yiri 1 milyan aan bixina oo $10,000 lacag ku dhow ah مساسا 1 مليون بحنا لو مالنا كلا بحنا ويري مالنا 500 مالنا 500
وفعلا معلمه قبصده وقصه شوي عجيب Soomaalida Kenya inaan ku dayano waxa kale oo runtii meeshaan ugu mahadcelinaa ducaale meel khayr lagu sameeyay ma jiro madrasa quraan la furayo ha noqotee masaajid la furayo ha noqotee meel la isugu imaado ha noqotee kitaab la dhimeeyo ijaazo la qaadanayo ha noqotee khatmo quraan oo tartan quraan la sameeyay ha noqotee meel uu ka maqan yahay anigu ma arkin عجيب بان وزير لما وزيرada lambarkow ku jiro waayo oo runtii yaani aad iyo aad qiimo u leh wadanka oo aad loo jecel yahay marka walaaliyaal khayrka la isku jeclaada khayrka aan sameeyno arintaas runtii ku dayshay mudan tahay aynu ku dayano ana khayr badan aan ka faa'iidnay hada Kenya ku noolnahay maadaama hada reer Kenya aan nahay runtii wallahi sharaf ay noo tahay inaan ku noolaano Kenya inaan qayb ka nahay khayrka ay sameynayaan waxa igu soo dhaweeyay wadankan Soomaalidu qabiil ay isu raacaan anigu wadankan aan joogo gawaajidi ahaan wallahi wa billahi wa tallahi dadka i garab istaagay dadkan ka dhashay ma aha dadka igu soo dhaweeyay dadkan ka dhashay ma aha dad ilaahay dartii aan soo jecelnahay ayaa wixii garab gawaari la ii keeno majaalis qoran dhisideeda garab istaag intaas dhan dad aanan garanaynin hadda bartay oo ilaahay dartii soo baranay awal garanayay baa garab igu siinoy ila yawmina hada runta daadin sheego والحق يقال جزاهم الله خيرا dadka ilaahay dartii noo jecel ilaahay dartii noo kaalmeenayo way mahadsanyihiin waan u soo duceynaa mar waliba tawfiiq Allah nawaafajiyo السلام عليكم ورحمة الله أنشدت بسم الله ثم الحمد له فالله أهل الحمد إن الحمد له يا رب أنت كلما رزقتني رأيت خيرا سابغا لا حد له بك الرجاء وحبكم ربي سرى في القلب ثم زانه فجمله أنت الذي سترت ما يعيبني وجدت لي من العطاء أجزله وهبت لي ذكرا جميلا وافيا في الناس لا أشك قيد أنمله وقيتني بالفضل كل حاسد ومفتر في كل ما تقوله قد كادني فصار ما يكيده بضد ما يريده فارتد له قد رام طعم الشهد في مكيده فخانه وذاق طعم الحنظلة رزقتني وأنت خير رازقين أزحت يا قدير كل معضلة تطوف بي مضائق أخالها لا تنتهي فتنتهي بالحوقلة يأتي إليك المستجير ماشيا وأنت يا ذا الجود تأتي هرولا سبحان من لا شيء حقا مثله رب الخلائق الذي لا ند له رب سلام مؤمن مهيمن بئس الذي يخونه لا أم له ما فاز من لم يهتدي بربه بل ضل في من ضل إن الويل له يا خالق يا رازق يا عالمون يا باعث الأموات بعد الزلزلة يا رب إني قد دعوت فاستجيب فالنفس من حمل الخطايا مثقلة وجد لي من أحببته فيك ومن أوصاني يا غفور فاغفر لي وله أجب دعاء خائف مقصرين يرجوك يا من لا ترد المسألة والختم بالصلاة دائما على محمد خير نبي أرسلا على محمد خير نبي أرسلا